caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa suugaanta iyo gabayada uu ka tegey ninkii la odhan jiray saalax maxamed yare oo lagu naanaysi jiray ma la ii diray ama saalax la ii diray. wuxuu ahaa nin gebiye og, isla jeerkaasna qodobka heli og, sidoo kalena tilmaanta abaari og. saalax la ii diray oo taxdhiga oosha sacad yoonis oo ka ceel haysa inta ka dhexle gobollada sool iyo sanaag wuxuu socod baaliqaadaysa ku mari jiray geyiga soomaaliyeed iyo carrasa waaxil oo waagaa loo tacabiri jiray. wuxuu ka mid ahaa dadkii xilliyadii abaaraha ba'an ay dhaceen ku eertay dhulka bidoodka washaysiga iyo gafur culusta Kenya ee Soomaalidu ay xoogga ku lahayd. waa iyaga iyo allahooda waxay idifka isgeliyeen ninka la yidhi ina nuur fadal oo ay isku afdhaafeen madal uu joogay salaan carabi isagoo halkaa doonayey saalax lay diray inuu gabay qoorqoor ah ka tiriyo. waxaa la sheegaa maadaama uu Kenya ku cusbaa saalax lay diray inuu haabhaabtay si uu isugu sheego ragga mayalweynta ee goobta fadhiyey. wuxuuna u yidhi qoladayda ninkii doonayo qaali baan ahaye qadhaa sacad yoonis oo qaalinaan ahaye qacda waaga nimankii berbera qoomay baan ahaye ingiriiska nimankii qabtay ee qaawiyaan ahaye qasnadaha iyo rakuubkii raggii qaybsadaan ahaye haddaannu isu soo qaadannana naguma qaybtaane qadaadtiirintooda haarkina qaada hadalkayga. mar kalena waa kii lahaa saalax lay diray waxaan ahay ardooy nimanka dega ila nugaaleede waxaan ahay ardada shiikhu dhalay kooda aadka ahe waxaan ahay ismaaciil carre iyo ururta waaweyne waxaan ahay ab laba haybsade oo shareer sacad. abwaan saalax lay diray waxa uu ka soo jeedaa gobolka sanaag wuxuuna noolaa dabayaqadii qarnigii 19 ilaa horraantii qarnigii 20aad. ragga ay aadka isugu gabyeen ama laysaga carro qaaday waxaa ka mid ahaa maxamed nuur fadal oo silsilad gabayahay muddo ka dhex socotay gabaygana aanu u filayno inuu isagu u tirshay. saalax waxa uu ahaa gabayahan gola kafuulka yaqaan oo ninka u gabya markaa u halcelin jiray. ragga kale ee uu gabiyey ama uu u gabiyey waxaa ka mid ahaa maxamed cabdulla xasan salaan carabi iyo rag kale. haddaba gabaygan ayaa la sheegaa inuu saalax lay diray ku guhaamay ciidamadii daraawiishta kaasoo uu aad uga naxay ina cabdulla xasan kana cawday. wuxuuna yidhi wiirwiir istaagina carrow wehel la'aaneede waxyi kuuma soo dego dhulkaad gelisay weesaaqee wejigii rasuulka haarkine welamdheh naarti waxunba iswartaan iyo khalqiga weeraroo dhacae wariisada agoontaad cuntaan waalidkeed lumaye wacdina qaadan maysaan sidaad maruu wareerteene waxunbaad gacmaha kula jirtaan waa berye fiide wahaabiga sidiisaad cilmiga waxaan u diiddaane wixii nebiyadii laga warsiyo war uma jeeddaane waddada isa seegoo ka dhaca webiya haadaanta wax aqoon tashiga loo wiciyo waaye odayaalna wadhma oo walaal iyo ka go'a wiil idiin kacae oo maalintaad raggisa waddaan wegeradkiin duulye baqaha wagac ka siiyo rogaal la idin weetee weydaha isdhaafiya ka jaba wiiqa bowdada. ina cabdulla xasan ayaa la sheegaa inuu waayadii dambe odhan jiray inkaarqabihii saalax buqaaba inala helay guhaankii. saalax iyo sugulle waxay ahaayeen laba nin oo walaal ah oo labaduba ahaa abwaano waaweyn. saalax ayaa beri u socdaalay habar yoonis galbeed wuxuuna la kulmay qabiil rag iyo maalba ka hodana dhul barrasan ah yaalla. saalax wuxuu deegaamadii uu tegey kala kulmay soo dhoweyn ballaadhan. saalax markuu ku soo laabtay koonfurta sanaag oo reerkoodu deegaan u ahayd ayuu walaalkii sugulle uga warramay tolweynaha uu soo arkay isagoo jeclaystay in beeshiisa sacad yoonis u guurto dhulkaas uu soo arkay. sugulle aad buu ula yaabay saalax wuxuuna fakarkiisa arrintaa saalax la yimi ku cabbiray tixdan aan dhammaystirnayn. waxaana uu yidhi sacad yoonis eexiyo u guur ila nugaaleede amarweynta tuurwaa bari bay ka ololaysaaye abtiniimo kuwii noo xigee laysadeecaayey waxay ooshii maxamuud jirtaa eegga karamaane gadhka igu aloolmiyo cirrada ubaxa aad mooddo abkay aadankay waxaana noqon inan la yaal reere deeqdiya ammaanta oo guryaha noogu imanaysa annagoo isaaq ugu ilroon olha noo celine arli loo hiloobiyo tigaad nooma soo arage afmacaanidiibay galbeed kugu aduufeene waxaan saalaxow ku irbaya waa ibliisnime abdama laha meeshaa duldaha kula ordaysaaye iimaanso oo diiyarbaa aaranjabiyaaye allowma gebi. saalax lay diray iyo sugulle waxay ahaayeen laba nin oo walaal ah oo waaweyn. saalax baa caanasanaa laakiin sugulle wuxuu ahaa nin aad u midho waaweyn. saalax lay diray oo magaalo iyo miyiba u dhaxayn jiray ayaa berigii ka socdaalay ooshii oo abaar xuni hayso geelina caato la socon waayey. cadan markuu waaye joogay ayuu soo laabtay carrigii oo barwaaqo ah oo geeli dhalay caanihiisina la daadinayo. saalax markuu geela quruxdiisii ka yaabay ayaa la sheegay inuu yidhi geelaba waan iibinaya. sugulle ayaa arrinkaa ka dhirfay oo yidhi gabaygana tiriyey. afarteeda dhaadheer markuu dhuuxu ka idlaaday dharaariyo dharaar goortaan biyaha ugu dhawaaqaayey
meeshii dhalaa lehba markaan kor ugu dheelmaayey ay dhabarro qaanso ah lahayd dhoof adaa tegee markii dhibic ilaahay shubee dhulu barwaaqoobay oo ay candhada dhaamiso dhayda laga maalay oo kurusku dhowr yooshabaad noo dhowaan timiye baldhadhami qadhaadh iyo macaan kuu dhadhamo xoorku kana dhereg ilaah iyo ragbaa meesha kuu dhigaye dhararahaba waataad lahayd dhowr aan iibsada hadduu awr dhufaanihi ku jiro kuma dhasiigeene dhadig baa la lacagaynayaa dhowrso ha u noqon saalax markuu gabaygaa maqlay isdifaac buu galay isagoo leh inaan isagaba geela hawshiisu ku yarayn ee dhagahadalka badan laga dhaafo wuxuuna ku soo daray gabaygiisa in xoolahan aabbahood uga dhintay oo aanay iyaguba tabcan wuxuuna yidhi waa waxaan dhulka u meerayaa dhogoryarow geele waa waxa sidaan dhalay buntuqa ugu dhabuucnaaye waa waxaan dhexdayda ugu xidhay dhamacda baaruude waa waxaan rasaasta ugu dhigay labada dhaayoode dhulkaa maray dharaartii horaad dhiman lahaydeene dhib ma arayga dherabkaad sidii dhayla hurudeene dhiilkii adoogeen dhaqaad weli dhammaysaaye ninna yuu wax idhiba ii lahaan tii allaa dhigane saalax maxamed yare oo ku magac dheeraa lay diray ayaa casuumad ka helay majeerteen markuu majeerteen iyo gaadhay waxaa qaabilay oo malaha casuumaddana lahaa cali sharmaarke oo tolkiis magac ku lahaa isla jeerkaasna afaray tuuran jiray saalax lay diray wuxuu wakhtigii uu noolaa ahaa ragga farakutiriska ah ee suugaanta looga dambay jiray isla jeerkaasna nin kastoo afmaalahiiba ka cabsan jiray waayo saalax gabayga ma doondooni jirin ee wuxuu ahaa ragga suugaanta golokafuulka eebee ku manaystay oo sidii mawjadeed ayuu u burqan jiray cali sharmaarke ayaa saalax oo jooga faanay oo yidhi majeerteen iyo intii madax madow baa isleeg maanta saalaxna intuu aad ula yaabay ayuu u sheegay in faro ragannimo iyo xadaaradba ay hanti isaaq ay tahay cid kalena aanay sheegan karin gabayguu halkaa ka tiriyey majeerteen waxba uguma dhimin ee wuxuu bilaabay inuu tolkii sifeeyo isaga oo malaha leh geel annagaa lehee cid ku fahantuu waaye ee cali sharmaarkow majeerteen faan uma yaallo gabayga oo aan dhammaystirnayn waxa uu ku yidhi saalax lay diray ilaahay amarkii sacad yoonis oo bayduu fadhiya baransakii oogo oo bowda weynow sangaha badali fuulaaya ama kiisa bari ee xarshow baadda lagu siiyo iyo buuro tuurwaa ahoon lagu ba'naan doonin oo burusho aadmiga ninkay boogii kala gaadho muuse carre nimankaa badsaday barakadii shiikha ama niman burcada xiisdego bili rag loo dhiibay ama bahawal nimankaa shalcow lagu bariideeyo ama nimanka bookh dega sambuur mudanka baarkiisa ama samatar buur iyo fadhiya marinbagaaggeeda amase baho iyo cali faarax iyo beesha laba iidle ama niman axmedahoo baraxan badaha coonkooda baanaan inamadii cali barreen cidina beegaynin reer yooniska buuraha dega iyo cumarka baalleeya bulshadii cibraan iyo samane ama bahmajeelo ama nuux bancawl iyo fadhiya beer iyo agteeda ama aadan aan lagu bahsayn budh iyo maadhiinka ama yeesifkaa bilic gobeed burada loo siiyey ama niman berbera degay akhyaar badhaxla weeyaane arab iyo bursuug iyo gadiid beesha laba xoosh ama ciidagalahaa batay ee bara rag dheeraaday ama celis siciidkaa baxwaray baydadiiyo khayrka nimankaa burco isugu tegey ee baarka laba muuse isxaaq barbaartii kaliil ama biyaa qaasim badhul bahante aan bela darteed buuq lama qashaynin iyo boqorradii sugulle oo bureedh hayeenkii ah iyaduba bahgeri waa og tahay geela bayga lehe baqdin iyo xumaan bay qabaan oo nagaga baydheene kiristaanka bayga leh nafsuu nagala biimaaye sayidkii balaayada ahaa bi'innay waagiiye intaasaan badhaafaye haddaan bug isku soo siiyo been sheegi maayee runtaa wada bannaanaatay boqornimo ilaahii gartiyo baraha dheeraada ragannimo beri aan dhowayn burona loo siiyey ninkii nooga bu'ayaa isweyn baradhaha u doonto addocolkaashax halkaa markay butorinayso ayuu cali sharmaarka yidhi gabaygaa ninkaaga jawaaba oo sidaad u baantay kuula jeexjeexa ayaan kuu doonaya ee igama kacdid cali ninkaas abwaankaa ee majeerteen oo aanan magaciisa helin ayuu meel dheer oo habeen loo dhaxo uga cidiray saalaxna wuxuu ku goodiyey inuu ninkii majeerteen u suugaan yahasanaa uu cid u diray oo uu soo socdo loogana fadhiyo inuu babadhigo saalax hawraarsan iyo waa sugayaa ninkaas iyo ciddii kale ee idiin hadhayba ayuu ugu hadal baxay markii ninkii abwaanka ahaa yimi ayaa golo weyn oo la qurxiyey oo ilyartuu isqabatay loogu kala baxay labadii abwaan wuxuuna cali sharmaarke ka durraantay saalax lay diray inuu isagu gabayga bilaabo isna ileen ee baabaraye uma miyirineh waa ku dilaaciye waxaana uu yidhi saalax lay diray ma dhurgohee waan kala dhilaa dhuubka maansada ma dhuunta ee dharaartoo cadbaan
dhalasho baanaaye abidkayba golo dhaygag leh baan dhaaxa ka hadlaaye ma dhaygaga hadalkii la dhaho wou dheg jabiyaae ma dhursugo dhiilada horaan kaga lisaa dhiige ma dhiife dhibni baan ii lahayn waa iska dhaafaaye hadba kii dhariici igu falaan kaga dhafoorshaye ma dhaawacee nabar loo dhintaan ula dhugmaysta dhallinyaro turbaysiyo waxaan dhaafay shuqulkooda ama hadal nin meel kala dhacaan sii dhadhama yeelan abidkayba kaa kama dharsoo dhaawadaan idhiye meel laba qabiila isdhacdaan dhaxi ka yeedhaynin dhacsiinada halkaan uga bartaan dhowrayaa weliye caawana wixii soo dhiciyo dhiiladaan sugiye dhalanteedaan layguma sabee dhoolma ka hilaacay ninkii abwaanka ahaa ee jawaabta laga sugaayey wuu kacay oo go'isiina degta saartay cali sharmaarkoon arrinkaas jeclaysan ayaa weydiiyey abwaanka sababta uu saalax ugu jawaabi waayey ninkii abwaanka ahaa waxa uu yidhi ninkani warkiisa waan hayaa oo waa gabay aabbihiis aniga iyo qabiilkaan ka dhashayna kelmad xun ma odhan aniguna waxba odhan maayo mar kale waa kii lahaa saalax lay diray macnaha gabay baryahan waa anigii mooga ka ahaaye xalaytuu mayuun iyo ka yimi makiya shaanshaane midna waara guuraynayiyo maylalbaasidaye marsaday ka soo daadiyeen macallimiintiiye isagoo markac ayaa la dhigay meelaan jiibsaday raggu gabayga waa wada marshaa muulkiisay raaciye marmarkayga iyo feedhuhu madhuga buuxaaye sida mayayga roobkaan xareed ugaga miisaaye hadda waxay ku meermeerayaan kaan mulaaxsadaye maxaa lay martii kaasi noqoy maalan le ahe maydh iyo magaalada xarshow maakhir gudaheeda malkada saaxil laga soo galiyo awdal midigteeda meeshiiyo ogaadeen degmada laysu wada muujay minjayaanna la eg faro haddii laysu midha sheegto mataanaha burciyo ceelku waa lagama maarmaane gobonnimada moodkoodu waa moos nin loo yidhiye ayaa midigta nala dhaafay ee idinku maamusay warsangeliga maaraha sitee nabad la moodaayo dhulbaantaha masiibada qabiyo muuse layseedye muranka isaaq siman yihiyo maadda suuqyada meel adag haddaanan ka dhalan lama maqnaadeene muruqiinna kuma haysateen maalin gelinkeede war hoy noogu mahadnaqa geelashaas na lagu maalaayo gabaygan waxaa sida la sheego saalax ka mariye xaruntii daraawiishta ina cabdalla xasan baa loo sheegay inuu xarunta yimi nin gabyaa weyn ah markaasuu codsaday in la tuso markii saalax yimi ayuu ina cabdalla xasan weydiiyey saalax inuu gabyo asna wuxuu ugu jawaabay kolley wax waa tuurtuuraa ina cabdalla xasan ayaa markaa yidhi bal gabay hadda aanu ku aragne saalax wuxuu yidhi xarfaha qur-aanka ayaa laga gabyaa ee keebaa doonaysaa wadaad inaan kaaga gabyo ina carre waa sayidkiiye wuxuu u haystay saalax nin wax soo biirsadaye markuu hadalkaas yidhi ayuu gadaal u fadhiistay oo cabbaar fikiray kadibna yidhi bal nuunka ka gabay saalax gabaygan aan dhammaystirnayn ayuu meeshii ka tiri allow qaadir waxaana uu yidhi nasli gabay hadduu leeyihiyo naafac laga dhowro naxwihiisa anigaa bartay iyo kiisa nuurka lehe nahnaalaha waqay uma tirshiyo naytidan garane niyadda jookha maantuu galee naafku guri joogo noociisu wuxuu gaadhayaa nudubta feedhaaye niishaanka ruuxaan la helo naarigaa diliye naafada dambeetuu sidii nabar kacdoomaaye raguunbaa wax nuunaynayaan nooli ku hadlayne anse kayga nadarkaad ka garan naahiguu yahaye ni baryadi nafla calaacalkiyo naaga ku ammaanka niyaddeyda waxay daaran yihiin nuqul sideediiye waxaan dhab ugu nuxnuxsadaa naab qabiiliga nuxnuxdiyo naxliga beenahiyo naqalka shayddaanka namiimshuhu warkuu keenay buu nacasku raacaaye nuuda hadalka naafaca dibnaha nuuska dhegahiinna ana nadartu waxaan soo arkaan nacam idhaahda dhulkoo nabada weedh laysku naco naadi ma aqaane nashuud iyo nasabad sheegadkiyo nabarradii baane mar hadduu ragtaas igu nekado ama iniib doono anna haluu shisheeyuu ka naxo naqe dharaarta dadka waxaan isnoqonnaa ninkay neeftu qabataaye abidkay iskuma sii nabnabo kaani naasibine nini nacab nasteexiyo wanaag amase naanayti an waa horeeto nidar baan ka naqay nuqunsi mooyaane ina cabdalla xasan wuxuu ku yidhi saalax u daraawiishi kuu soo gabyi mayse adna ha u soo gabi asna ha waraarsan buu yidhi laakiin axdigaasi waa jabay mar kale waa kii saalax lay diray lahaa iyada oo lagu marti qaaday magaalada gabiley oo aanu weli tegin waa nin caano geedhame waxaa loo keenay baalay dhashaaqo iyo caano lo'aad oo taxar iyo leexa hilib geelna waa arki waayo waxaa la soo duldhigay in shuuro ah iyo masago sidoo kale saalax lay diray wuxuu fahmi waayey dadku af soomaaliga ay ku hadlayaan halkaana wuxuu ka tiriyey gabay aanu beydadkan ka hayno humbanida habsharada isu timi
gaala ka hadheenka hujaalaha amxaariya garraha la isku soo hooyey hunshada gabiiley fadhida hayle xumayaasha dadkan hoosta lay soo gashee haybta ka isaaqa isku habarmagaad laynu nahay waa waxay hoday in la wadi jiray baa markii wuxuu cartamaba saalax lay diray ayaa goor dambe xagga eebbe u jahaystay wuxuuna gabaygan ku baryayaa ilaaha dunida iskale wuxuuna yidhi allahayow cirkoo damax ayaa dacal ka faydaaye markaasaa shamsadu daalacdaa oo dunida nuurtaaye allahayow dalkoo ooman baad dixi biyeysaaye markaasaa dugaag iyo dadiyo duunya ka cabbaane allahayow cirkoo diiran baad caad ku dadabtaaye markaasuu daruur culus helaa diidna yeeshaaye oo ay dareemada dhulkiyo dixidu baacdaaye allahayow mid baa duunyar oo derajo siisaaye markaasaa la daba shaambiyaa doobab iyo beele allahayow mid daaduumay baad duni u dhiibtaaye markaasuu ka diihaal baxa deeqna hidiyaaye allahayow mid dow dhaafay baad ku camirtaa diine markaasaa dulowgii taqwadi uga dambaysaaye allahayow kan loo dayriyiyo hayga dhigin daalin oo ducada ii qaad sidaan kaa dalbaday caaw tixdan waxaa la sheegaa iyaduna ugu dambaysa waa iyaga iyaalahooda markuu saalax tirshay inuu 40 habeen sii noolaa oo uu xijaabtay waa gabay uu kaga hadlayo inuu aakhiro iyo xaalkeeda kaga mashquulay qabiil daafac iyo qooq isla jeerkaasna ay iminka la gudboontahay inuu naftiisa qool geliyo oo ku soo dabaalo diinta waxaana uu yiri saalax lay diray qorshihiisa gabay waanigii qaanac ku ahaaye qoteeyaha sidaan uga ahaa qaarinimadiisa nin kaloo qiyaastii bartaa kama qatoobeene dhaaxaan qatimay oo naxwaha qubay sidii roobe kolse haddaan qasiidado ku yaal qadiyo loox waayey oo aanu qanaacaad lahayn qaylis waa nacaye nimankan qurmaanka u haya ha u qalqaaleene ashahaadda gaal laga qarshee loo qayaxay muumin kolkaan qayd lahaa iyo markaan anigu qaangaadhay intii aan qabiilada jinnihi iyo qaxar ku daalayey horta maanqudhayda u tabcado qaafil yaangoyne oo maan wuxuun kala qobqobo qaayiskay saaran allamaan qadeeyo waxaan qababa soo toobo qudraddiisa kii nagu alkumay aniyo qayrkayba qiyaamaha haddii aan hor tago aniga oo qaawan allamaan qaraamii godkiyo qarashkii meeleeyo oo maan qufraan eebbahay qani ah weyddiisto qiyaamada nafta igu waddee qariga tuuraysa allamaan intaanay qatalin geliyo qolkeeda